gaare naftaydu marka aan urka hooyaday ifka uga soo baxay anigoon anfaca baran necawdiisa udugale kii igu anqariyo carligaygo ifka uga soo baxay anigoon anfaca baran necawdiisa udugale kii igu anqariyo carligaygo وعن أول أحسن إذا الكين ملك صاد نقد داور إنسان داور يا شقي ما هي قدرت مدن واحد كسر دواتان مناسبة دا كودا لوليو مالنتا لبضة قبل كونفور يوقوي أي مدوبين يجو أي دمان بدت كصومالية يكونوا رجالية دا ذلك السعودية أريبيا أي أمنا أي مهد علينيان دمان با شعب كصومالية وعن أول أحسن كسر دواتا ما جاي بلو أنا قام مقاري أي والله أرو يوسف اليوم مرو وكنور سعودي عربية يا إن هم بلاية مكي ونقاد إني خوي لمن سومالي بريم لوليو سومالي كل ملي هرد ما يليا يعني إن سي أنا كفرها سين كفرها تياسكين شيرا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو عبد القادر محمد محمود وكمية ganacsatada jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Carabiya khaasatan magaalada Jidda ma sha Allah tabarakallah waxaan ku faraxsanahay konton iyo shan guuradii kasoo waqtiga xurrimada ee qaadatay Soomaaliya kooda luuliyo anagoo ku guda jirno isbuucii kooda luuliyo ama weekii kooda luuliyo iyo ma sha Allah iyo walaalaheena Djibouti iyo ma sha Allah tabarakallah iyo maamulka hadeerta gobolada waqooyi aad ugu faraxsanahay wallahi saraxa yani wax la soo koobi kara ma ahan Soomaali oo israacday in ay si fiican isku sii raacaan adduunka wuxuu gaaray horumar in aan sii horumarno anagoo jecel ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa anigoo ah jaaliyada Soomaaliyeed oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay gacmaha isqabsadaan بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقا أيام محمد علمي وحان كمدا صومالي كنو دالك سعود عربية وحان آد وقفر حسان هاي مناسبة كودة لوليو وقو أستيسان markii gobolada koonfureed ay ka guuleysteen meestii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur waxaan leeyahay guuleysta fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa oo halkaan ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel alaal meeshay joogaan kulligiin waa salaamantiin waxaan kaloo halkaan ka salaamayaa madaxweynaha waxaan leeyahay guuleysta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام كأنا لكم سلامي أنا سعيد عبد الرحمن مع يوسف وحن جوجا مقالة سعودية عربية هان جدة وحن كميد هاي قضياشة كميد حبي جرب بدتك نبض عدة دتك ويانا وحن كميد هاي ومضى aad u jecel nabada iyo horumarka waxaan ku faraxsanahay dawladda dadaalka ay qabatay oo maanta heerkan gaaraya way Soomaaliya 22 sanadood ayay burbursaneed dawlad la'aan ay ahay waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in halkan ummadda Soomaaliyeed waxaan uga dirayaa hambalyo ku aadan munaasabadii 1 Juulaay oo ah maalin ku qiimo badan ummadda Soomaaliyeed iyadoo maanta laga joogo guuradii waxaana xusid mudan haliyadii u soo halgamay xurriyadda aan maanta harsanayno waxaa farxad kale inoo 1960 maalinka xornimada aan qaadanay meesha calanka Soomaaliya laga taagay in haddana 1 Juulaay oo hadeertaan ahayd in laga taago ayadana waa farxad kale oo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogto ay u soo hooyatay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم وعادي فرحت ما تيرين نوع عاوة إن تهابينكي لبعض الصوماليات المدودي وقوي كونفرنس كنت جان عالم كمدة سنينا للصاري وهي بدأ السمار تبعها أي صومال وكنتي إن لا يقص العالم كأدونك ملف عنا كجهره ومدة الصومال لما بعد جواي
oo sharafteeda iyo heebadeeda markii la arkay iyo midnimadeeda iyo xooggeeda markii la arkayna lagu kala jebiyey sida maanta ay ku socoto ood arkayso in maamulo shalay waxaan ku dagaalamaynay xisbiyo iyo ururo SS baa socotay maantana waxaa socotay MM socoto maamul iyo madaxweyne wada socdo marka waxaan rajaynayaa caqliga inuu dib u soo laabto ummadda Soomaaliyeed dhaqaalihii ay lahayd iyo dadnimada ay lahayd dib ugu soo noqoto lees aqoonsado maanta waa 55 guuradii xorriyaddii dalka Soomaaliya maanta ay qaadatay waxaan rajaynayaa inaanan dib noola celin ninkii wiilkii waalintaas dhashay waa 55 jir waan meesha qofka bini aadamka oo ka arrimin karo oo ana absolute ogaan karo xaqiiqda laga hadlaayo dhibka iyo wanaaga ummaddaas waxay u baahan tahay dalkayni saddex shay adduunka lagu tartamo yani ilaahayna siiyey waa nimcadda maarta beeraha waa nimcadda xoolaha waa nimcadda badda oo ilaahay maarta xeebaheena maarta anaga ugu weyn adduunka ugu dheer Afrika anaga aan leenahay ee maanta aan laga faa'iideysanaynin oo dhibkan haysta ay tahay kaliya bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo Xaliim Saadiye Xasan Xuseen oo ku nool dalka Sacuudi Carabiya waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto munaasabada kooda luuliyo oo ku beegan 55 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ay ka xurubeen gumeystihii Talyaaniga iyo madowgii labada gobol koonfur iyo waqooyi halkaas ay ka dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxa halkaan ugu mahadcelinayaa TV-ga qaranka Soomaaliya qaybtiisa Sacuudi Carabiya fursadan qaaliga ayna siiyeen aan ku cabireyno dareenkeena waa mahadsantiin bismillahirrahmanirrahim aniga waxa weeye Cabdi Cismaan Sheekh waa Cabdiis magac dheer waxaan joogaa Saxiifa Mool Sacuudi Carabiya marka Saxiifa Mool Sacuudi Carabiya waxa fursad wanaagsan oo inaan TV-ga qaranka aan ra'yigeena ka dhiibano iyadoo ay munaasabadu tahay Premier Luulio oo calanka aan qaadanay 1960 oo ay ka soo wareegtay 55 sano oo dadka aniga igu da'da waqtiyaasha ay dhasheen ay tahay waan ognahay Soomaaliya isjacayl ay isku raacday shantii Soomaali loo qaybshay labadii gobol oo cadaan ku xukumayay ayaa israacay 26 Juun ayaa waqooyigu qaateen koonfurtuna Premier Luulio qaatay Soomaaliya jacayl iyo shuruud la'aan iyo wadanimo iyo isjacayl ay isku raacday wixii ka dambeeyana hadii waa la arkay hadii la wada jiro awood la leeyahay hadii la iskhilaafo ra'yigu iskhilaafana ayadana natiijadeedii waan haynaa oo maanta maraheedii haynaa marka anaga adaan Soomaalinahay waxaan wada jir ku weynay ku heli mayno kala tag marka anu waxaan leeyahay Soomaali hays doonato ha aragto adduunku soo isu raadsanayo isu aruursanayo calankeeda dhulka yaalaha ka qaado hana iska ilowda in walba oo asagu meel gaari karo oo ninka kale walaalkiisa oo na iska reebo waxa meel uu gaari karo wada jir iyo gacnaha la isqabsado iyo tanazulaad walaal oo lagu wada hadlo hadii kale tartanka adduunka waaba ka harnay inta ilmaheena waa ka harayaan anaga da'deedu waa ka harnay ilmaheena waa ka harayaan dalku ma xuma sida hore loo sheegay dalku waa dal meel istiraatiiji ku yaala hadii laga faa'iideysto waxa weey waa la mahadinaya hadii laga faa'iideysto waayana dalka Ilaahay waa abuuray Ilaahay haduu abuurana umadu uu abuuray ka faa'iideyso weyso oo qoomka iyaga isbedelaan waxa iimaanaya cid kale oo ka faa'iideysato Ilaahay oo uga faa'iideeyo asagoo bixi maayo anaga baxayna marka inaan sii socono oo meel ka sii laalaadna hal la dareemo maamul goboleedyada la sheegaya iyo waxay waa qabiil ku salaysan yihiin waxayna tagayaan qabiilku xuduud male meesh u hooseysa hadda qabiilka isjecel baa bari isnabcaanaya saaha la ogaado hadii kor loo socdana qabiilku ceeb keeni maayo oo Soomaalima loo socdo hadii hoos loo aado qoys loodan yaani hada waan xaar arooriyad nin subaxii dhalmaday oo Jarmaladi meesha ku soo kaatay tagay waxa ugu tagay waa yaqaan qabiilka hadii dib loo siraac sidaas uu noqonaya waxaan leeyahay walaalahayga reewqooyiga intaas oo sanay ku qooyeen waa goosana iyo waa la noqon waxa weeye kuwii kale oo ka goosateen na wax ma hayaan idinkuna wax ma haydiin annagu tanasulaadaan koonfurna waa inaan bixinaa reewqooyiguna waa inay aqbalaan hadii kale waxa iimaanaya in la dibcadda iyo dibguduud aan noqono dibcadda iyo dibguduud ninka soo Soomaaliya uu yaqaan ma garta marka looma baahna in waxaan macna lahayn aan waqtiga ku dhumino taariikhdu ay wax naga qorto ilmaheena ay hadhow nagu eedeeyaan dalkii aabayaasheena baabashay maanta waa ogtiin dadkeena meel kasta laaji ku yahay meel kasta ku ceebeysay calankeena qiimo male baasaboorkeena qiimo male wadankeena hadii la soo qaado nala kuma ixtiraamo waxaana keenaya arrimaha gudaha ka jira haddaan arrimaha gudaha ayaan hagaagin arrimaha dib ma hagaagi karaan dawladda waxaan leeyahay midnimada ku dadaala nabadgelyada ku dadaala taxaalifaad hadii la sameeyo
madaxda waxaan ka codsanayaa inay samaystaan taxaalufaad dad macno leh ay safka hore soo geliyaan. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ومحمد عبد الله تيتو waxaa aad ugu faraxsanahay munaasabada qiimaha badan ee kooda July ama kooda Luulyo oo ku beegneed maalintii gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur 55 sano kadib meel Soomaali meel walba ay joogto waxaa leeyahay sanad guuro wacan waxaa u rajeynayaa sanadka xigo bash iyo barwaaqo insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. halway waa habeenkii lixdankii xanaaqe isxukuma la yidhi xaqinii iftiime halway waa habeenkii lixdankii xanaaqe isxukuma la yidhi xaqinii iftiime وخصوصتي حريتيني حدري ومدى حربا وخصوصتي حريتيني حدري ومدى حربا حلالو حريها كبوحديو حلوة لقو عشيه حسني وهابينكي انت وزح حلالو حريها كبوحديو حلوة لقو عشيه وخصوصتي حريتيني حتى يوم دحرها وحسوستي حريتيني حتى يوم دحرها tani inta aanu barnaamijka xiga aynu idinkaga tegeyno waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo ayaaka taliyaan axadku maraya arligaygo midka saka ordeka abaldhace adoonsiga la jira soo mooga horta soo mooga
midkasaka ordeka abaalrece adoonsiga la jira soo moogaho